al-shabaab ayaa lagu eedeeyay inay burburinta xarumaha danta guud iyo barakicinta dadka deegaanka ka wadaan degmada Ruunirkood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramay. wararka naga soo gaaraya degmada Ruunirkood ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaas ay ka wadaan burburinta xarunta degmada, isbitaalka, suuqa iyo xarumo kale ee danta guud ee ku yaala halkaas. sidoo kale al-shabaab ayaa la tilmaamay in dadka shacabka ah ay qayb kamid ah ay ka barakicinayaan xaafadihii ay deganaayeen, lamana oga sababta ka dambeysa. gudoomiyaha degmada Ruunirkood ee gobolka Shabeellada Dhexe Macallin Muxudiin Maxamed Kulmiye oo la hadlay KNN ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab burburinta iyo barakicinta barihii dambe ay wadeen iyaga oo kaashanaya dadka deegaanka qayb kamid ah, isla markaana maamulkiisa ay waxba ka qaban karin. deegaanka la dumaaba guriga degmada, isbitaalkii, ceelashii, suuqyadii, iskuuladii iyo qaybta kale deegaanka ahaydoo guryihii dadku u wahay degmadii xaseed oo intaas eeday degmadii oo dhan iyo dadkii iyo degmadii waxa dhammaan la isku jibiyo waaya baala duultaaga jeedaa laga leeyahay oo jawaaba la abuuray shaqadaas oo ganacsana waa laga abuuray, haddana waa laga abuuraa. dadku xor maahan ma dhisa karaan waxa si xorana waxa kuma dhisa karaan wax dhisana lagu wareejaa oo amar lagula wareejaa lacagta intaas kusoo shubaa la leeyahay, amara lagu dumaa, amarana lagu dhisaa. marka culays dadka saaran waayo oo maalmahan baduu taagnaa. marka arrinkaas arriman ognaa waayo maalmahan ba aad noogu badnaa waa wallaahi hadda waxba aan ka samayn karno malahan oo dee anaga muqdishaan joognaa meeshii nimankaasaa ka taliya, nimankaasna ka taliyaan qaabkay uga taliyaan dadaa kula xiran, dadaa bulshada loo adeegsadaa, dadaa bulshada loo dirsadaa, dadaa bulshada loogu daba-aadaa oo ugu daba-aadaa dadkaasaa lagu dilaa. dadka dad noocaasoo deegaanka ku dhasha arrintan horboodaya. marka nimankaas diinkaana amarkay awooday leeyihiin adeegana dadkaa saare qabashana waa ka muujinay, dad badanoo mas-uuliyeenana waa kala xariifnay. gobolkana waa ogyahay arrintaasi arrin oo maalmahanba waanu la soconay waaye ka maamul ahaan. al-shabaab ayaa la tilmaamay in deegaanada ay maamulaan badanaa dadka ku nool ay ku hayaan handadaad, xarig, isla markaana dadka ka aragti duwan oo amarkooda diida ay dilaan, kadibna ay ku sheegaan in jaajuus ay ahaayeen.